xuska maalintan caalamiga ah ee haweenweynaha adduunka ayaa maanta si ballaadhan looga xusay magaalada Burco. munaasabadii lagu xusayay maalintan 8 Maarch ee haweenka adduunka oo ay iska kaashadeen wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo dalladda Nagaad ayay ka soo qayb galeen haweenweynaha magaalada Burco, ururada bulshada, isuduwayaasha wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada, cadaaladda, shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer iyo weliba maamulka gobolka. hadallo u badnaa dhiirigelinta haweenka iyo soo bandhigidda waxtarka iyo muhiimadda haweenku u leeyihiin nolosha bini'aadamka. sidoo kalena ay haweenku kaga hadlayeen tacadiyada soo gaadha haweenka iyo waxyaabaha ay guulaha uga gaadhi waayaan ka qaybgalka kuraasta iyo talada dalka ayay halkaas ka soo jeediyeen mas-uuliyiintii iyo haweenkiis halkaas ka hadlay. maalinta tan caalamiga ee International Women's Day-ga caalamka oo dhan baynu kala simanahay oo maxay ahayd waa la xusaa. maalintana waxa aad iyo aad loo asteeyay haweenka oo waxa maalinta haweenka u gaarka ah. halka waxa ka muuqata haween la'aantii inay noloshu macna badan sameynaynin. wax ilaahay soo saaro dhammaan waxay ka soo jeedaan marka nabi aadan laga reebo haween bay ka soo jeedaan. wax la yiri xamsow taladu waxay inta tahay nin kastoo xaraga meel maro xaraka laafiyooda haddii aanay xil caawinayn xagal ma waayeen xusuusnaadu hoy dumarka waa laga xishooday kooto ay haweenku ku tartamaan si ay uga qayb galaan talada dalka. waxa loo dhayaa labada dhinacba ha ka yimaadeen reeruhu, labada dhinac markay ka yimaadaan way wada hadlayaan. gabadha gurigeeda ku soo celiya wax allaali wixii aad qabtay iyo dhibaatadii ku haysatay iyo mashaakilkii kugu furnaa cidiba eegi mayso, xaqaagii baanad helaynin. maanta waa maalin ku aastaysan maalinta haweenka 8 Maarch. waa maalin aynu maxay toole inaga inoo sultan. waa maalintii aynu ka halka ka sheegi lahayn wixii aynu xaq u leenahay ee inaga maqan iyo waxa aynu xaq u leenahay helnay. tacadiga ugu horeeya haweenka isku geysta halka aynu dhalano ayaa tacadigu ka bilaabmaa. marka ay dhalato umulisadii waxay sidaa u eegto waxay oranaysaa inan baa dhalatay, inan baa dhalatay markaas hoos isku eegayaan yeelkadeeda inan baa dhashay rasaas baa la ridaya. xuquuqdii ilaahay ina siiyey waynu haysanaa ilaa mid aynu iskaga taaganahay mooyaane taynagu iskaga taaganahay inaguna canaanana weeye. madaxweynena kuma canaanan karno, cid kalena kuma canaanan karno, laakiin balse 8 Maarch waa maalin aan ku suntanay wada xaajoodka iyo wada hadalka haweenka reer Soomaaliland, taasoo aan ku qorsheyno waxyaabaha naga dhiman iyo waxyaabaha aan guusha ka gaadhnay. Gabdhaha Soomaaliland waxaan leenahay hambaliyo horta marka hore inagu markaynu is-ictiraafnay inagu isqaadanay inagu isu qabanno inagoo waliba aan odhan karo marxalado badan oo hore u jiray baynu ka soo gudubnay. kana 2 sano ugu dambeysay si fiican bay inoogu socotaa shaqadu, isku xil badan baa inoo socda, haweenkii baraarugay baa inoo socda. haween wixii soo qabtay ayaan qiyaas lahayn hayeeshee uma qardaan qaran inay yihiin hayeeshee uma qabtaan xilba qaban karaan talada qaybaan ku leeyahay aan ku qaran isku kalsoonaataano idinku isa soo saartaan waa badantiinoo dabnaantiina idinkaaba sheeganaya anagu waa idinka yeernay haddana dee waa kala qaybqaybsanay oo maxaa marka horta haweenow mid marka la eegana xagga xuquuqda marka la eego horta xuquuqda ilaahay baa idin siiyey meel buu idin dhigay. xuquuqdiina cid ku gafi karta iyo cid ku xadgudbi karta ma jirto. adduunyadan ilaahay baa abuurtay, ilaahay baa qof walba xuquuqdiisa meel dhigay. tuu ilaahay idin siiyey mid ka badan cid idin siin mayso. haweenku waa cududa koowaad ee dalkeena, waxay ka qayb qaateen halganadii kala dambeeyey ee xornimadeena aynu ku doonaynay. idinkoo tirdhaxaadkii dalka ah, idinkoo tirdhaxaadkii guriga ah, idinkoo tirdhaxaadkii awlaadda ah, idinkoo tirdhaxaadkii ninka laftiisa u ah, ina tirdhaxaadkii idinka ahaa aad ku gaari lahaydee waxaad doonaysaan idinku ay yeelataan ta idinka maqani waataa. horta marka hore markays aqoonsataan ayaa aqoonsiga kalena imanaya. Mustafa Cismaan, magaalo warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.